diblomaasiyiinta reer Yurub ayaa wada xaajoodyo yeeshay si ay uga heshiiyaan xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Ruushka oo ay ku jirto mamnuucidda saliidda Ruushka. Brussels waxa ay doonaysaa in ay soo bandhigto cunaqabateyn lixaad leh oo ka dhan ah Moscow si ay u kordhiso qarashka weerarkeeda ka dhanka ah Ukraine iyo in laga jaro dhaqaalaha Yurub ku tiirsanaanta sahayda tamarta Ruushka. Ma fududa in midnimo la dhiso ayaa Jimcihii qirtay gudoomiyaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen. Wadamada hadda ka warwareegaya weli diyaar uma ahan. Waxaan la fadhiisanaynaa wadamadan Brussels si aan uga shaqeyno waxyaabo macquul ah sida helitaanka saliid kale oo dalalkan ah. Waxaan ku kalsoonahay inaan heli doono xirmadan haddii ay qaadato maalin dheer, markaas waxay qaadan doontaa maalin dheer. laakiin ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa ku dhawaaqay in mamnuucista saliidda ay ka gudbi doonto khadka cas ee Budapest. Madaxa Komishanka Yurub si bareer ah ama bareer la'aan ah wuxuu weeraray midnimada Yurub ee laga soo shaqeeyay ayuu yiri. Diblomaasiyiinta ku sugan Brussels waxay u maleeyeen in tanaasul la heli karo, laakiin waxay ka digeen in Orban oo hore u soo ahaa ra'iisul wasaarihii Hungary 1998 ilaa 2002 uu isticmaalayo 9 May ee maalinta Yurub isagoo u dabaaldegaya hidaha midowga Yurub sida kabaal. Isniinta ayaa sidoo kale si weyn loogu dabaaldegi doonaa Ruushka marka ay qabato maalinta guusha ee xuska guushii dagaalkii labaad ee adduunka ee Naasiga. Brussels waxay rajaynaysaa xirmada cunaqabateynta cusub inay roob ahaan ugu da'do dhoolatuska madaxweyne Vladimir Putin si cunaqabateyntu u hirgasho dhammaan 27 xubnood ee EU-da waa inay si wadajir ah u ogolaadaan. Mudaharaadyo cusub ayaa ka dhacay Sri Lanka iyaga oo diiday bandoogii kadib markii 5 qof oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ay ku dhinteen rabshadihii ugu xumaa ee toddobaadyo socday. Mudaharaadyo ka dhashay dhibaato dhaqaale oo daran. Dibadbaxayaashu ma muujin wax calaamad ah oo ay dib ugu laabanayaan xitaa kadib markii tiro badan oo ay ku dhaawacmeen markii taageerayaasha dawladda oo bas ku galayay Colombo ee maalin ka hor ku weerareen mudaharaadayaasha ulo. iyadoo carada ka dhalatay dhacdada ay cirka isku sii shareertay ayaa ra'iisul wasaare Mahinda Rajapaksa uu iscasilay Isniintii, laakiin xitaa taasi waxay ku guuldareysatay inay dejiso carada dadweynaha maadaama walaalkii Gotabaya uu weli yahay madaxweyne leh awoodo baahsan. Dibadbaxayaasha ayaa maalintii 23aad buux dhaafiyay albaabka xafiiska Gotabaya ee magaalada caasimadda ee Colombo iyaga oo dalbanaya in uu raaco wadadii walaalkii oo uu shaqada ka tago. Goor sii horeysay kumanaan dibadbaxayaal ah oo careysan ayaa habeennimadii xalay weerar ku qaaday guriga Mahinda. Ra'iisul wasaarihii hore ayaa lagu soo badbaadiyay howlgal militari oo waagu baryay kaasoo sunta dadka ka ilmaysiisay iyo rasaas digniin ah lagu riday. ugu yaraan 10 bombooyinka shidaalka ah ayaa lagu tuuray xarunta ayuu sarkaal sare oo dhanka ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Kooxo dibadbaxayaasha ka mid ah oo feejigan ayaa xiray wadada weyn ee aada garoonka diyaaradaha ee Colombo waxayna joojiyeen dhammaan isu socodka gaadiidka si ay u hubiyaan kuwa daacadda u ah Rajapaksa ee isku dayaya in ay baxaan, inkastoo wiilka Mahinda uu sheegay in aabiis uusan baxsan doonin. Xukunka dilka ah ee lagu xukumay muwaadin Swedish Iran Ahmed Reza Jalali ayaa ajandaha ku jira waana la fulin doonaa sida uu sheegay afhayeenka garsoorka ee Iran Sabuhullah Khodiyan. Jalali waxaa lagu xukumay dil toogasho ah oo lagu eedeeyay dhowr dambi. Xukunkana waa kii ugu dambeeyay. Xukunku waa lagu fulin doonaa ayuu yiri afhayeenka isagoo aan sheegin xilliga uu dhacayo. Toddobaadkii hore wakaaladda wararka ee ISNA ee Iran ayaa sheegtay in Jalali lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa Israa'iil, waxaana la dili doonaa bisha May 21keeda waxaana la xiray sanadkii 2016. Xiriirka u dhaxeeya Sweden iyo Iran ayaa ahaa mid aad u xumaatay markii ay Sweden xiratay maxkamadna la soo taagay sarkaal hore oo Iran u dhashay oo lagu magacaabo Hamid Nouri kaas oo lagu soo oogay dacwado la xiriira dil wadareed iyo jirdil loogu geystay maxaabiis siyaasadeed oo ku xirnaa xabsi ku yaala Iran sanadihii 80-aadkii. maxkamadeynta Nouri oo Iran ay cambaareysay ayaa soo afjarantay Arbacadii. Xukunka ayaa la filayaa July waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xabsi daa'im gudaha Sweden. Nin Swedish ah ayaa lagu xiray Iran sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden Jimcihii, maalmo uun kadib markii ay ku talisay in aan loo safrin Iran iyada oo loo aaneynayo xaalad amni oo sii xumaanaysa. Sida uu qoray wargeyska Aftonbladet ee ka soo baxa dalka Sweden oo soo xiganaya ilwareedyo aan la magacaabin, ninkan ayaa ahaa dalxiise la socdaal dad kale oo Swedish ah waxaana la xiray maalmo fasaxa oo uu ku jiray. Labadaas arrimood iskuma xirna. Mr. Nouri wax dambi ah ma laha, waxaana Mr. Jalali la xiray 2 sano ka hor kiiska Mr. Nouri. sidaas darteed ma jirto suurtagal ah in labadan qof la isweedaarsado ayuu yiri Khodiyan oo intaas ku daray in arrinta Nouri siyaasad laga leeyahay.